tan iyo markuu bilowday dagaalkii sokeeye Itoobiya ee u dhaxeeyay ciidamada TPLF iyo ciidanka Itoobiya waxa ay soo tarayeen inay jiraan xasuuq daran oo loo geystay shacabka Tigreega. Shalay Abiy Ahmed markuu hortagay baarlamaanka federaalka Itoobiya wuxuu si cad u sheegay in dagaalka ay ka qayb qaateen ciidamada Eritrea xasuuq baan ay halkaas ka geysteen. Abiy ayaa iska fogeeyay in ciidanka federaalka Itoobiya inay halkaas ka geysteen xasuuqa maanta lagu eedeynayo Abiy Ahmed. Hore Abiy Ahmed wuxuu u qiray inaan dagaalku ka mid ahayn ciidamada Eritrea, laakiin hay'adaha caalamiga ah ee xuquuqul insaanka ayaa soo bandhigay muuqaalo muujinaya in xasuuq daran halkaas uu ka dhacay ay geysteen ciidamadii duulaanka ku qaaday deegaanka ee Tigreega ay degaan. Muuqaaladan argagaxa leh ee la soo dhigay baraha bulshada ayaa muujinaya in halkaas uu ka dhacay gaboodfal iyo xasuuq loo geystay shacabka Tigreega. Muuqaalkan waa muuqaalkii ugu dambeeyay ee la soo dhigay baraha bulshada. Halkan waa caasimadda Tigreega, Mekelle. waxa weli ku sugan ciidamada Tigreega oo weli dabaabaadkooda ku dhex wata caasimadda Tigreega ee Mekelle. waa markii ugu horeysay ee la ogaaday in xasuuq daran loo geystay shacabka Tigreega, laakiin hay'adaha xuquuqul insaanka ayaa qiraya in ay weli jiraan xasuuq iyo tacadiye intan ka badan oo ay geysteen ciidamada Eritrea iyo ciidanka Itoobiya. dowladaha Mareykanka iyo reer Yurub ayaa iyagana cambaareeyay dhacdadii foosha xume ee lagu la kacay shacabka Tigreega. waxay kala codsadeen in baaritaan dheer lagu sameeyo tacadiyada iyo dhibaatooyinka halkaas ka dhacay. sidoo kale weli Itoobiya waxa ka socda dagaaladii u dhaxeeyay ciidamada TPLF iyo ciidanka federaalka Itoobiya oo garab ka helaya ciidamada Eritrea. maleeshiyaadka TPLF ayaa saakay dagaal dhabbagala waxay ku qaadeen kolonyo ciidamada Itoobiya oo maraya sohodinta buurta Benas oo u dhaxeeya caasimadda Mekelle iyo deegaanka Hazar. sida la soo warinayo waxa halkaas lagu gubay dhowr baabuur ay wateen ciidanka federaalka Itoobiya. waxa kale la soo warinaya ciidamada TPLF in halkaas ay ka kaxeysteen saraakiishii iyo kolonyadii ciidanka watay.